moogtahay qofka aan garan meesha uu ka yimid ma garan kariyo meesha uu u socdo. halkan aan ku leeyahay waxa uu ku socdaa beelweynta Habargidir kadib markii oo xoogga ay saareen ganacsiga iyadoo ay beeshaasi ay si wanaagsan ay u baratay ganacsiga iyadoo la isku raacay in ay yihiin dad ganacsiga aad uga wanaagsan Soomaalida iyo Afrikaanta kalaba iyo Carbaha. laakiinse waxa ay iloobeen in uu ganacsigaas uu taagnaa karin iyadoo ay meesha ay ka baxday siyaasadda ganacsigaas ilaali lahayd taasoo ah in ay awood xoogan ay ku yeeshaan siyaasadda dalka ka jirta. sida wada ognahana ganacsiga iyo siyaasaddu marnaba ma aha kuwa kala hara ee waa mataamo isku dhaxnool. sidoo kale 60 sano kadib beeshan ayaa waxa ay taagan tahay waana la khiyaanay iyagoo ka bixila hebel kursigaas uu soo maray waa nugu khiyaanay waxaana ay ka fogaadeen in ay sameeyaan isbedel ay uga hortagi karaan khiyaanoonkan isdaba joogga ah aan kala go'a lahayn. haddii aan kuu jalciyo ama hadalka aan kuu soo gudbinayo aan kuu fahansiiyo macnaha uu xambaarsan yahay ayaa waxay tahay madaxweynaha hadda talada haya Xasan Sheekh ragga ku hareeraysan ee matalaya beesha Habargidir iyo dadkii ay ka dhaxleen siyaasaddan ay maanta ay ku matalayaan beesha dinfarsiga u dhaxeeya. haddii aan tusaale kugu soo qaato jarnaalka Allah u naxariistay waxa uu xoogga u saaray in uu calanka Habargidir uu Soomaaliya gabageed uu ka lulmo sida calanka Mareykanka uu leeyahay kaasoo dunida daafayda meel walba ka taagan. sidoo kale jarnaalka ayaa dhaxal weyn uga tagay beesha kadib markii uu bug taariikha uu qoray buugaas oo ku qoran Ingiriiska taasoo ku cadeynaysa jarnaalkan inuu wax badan u ogaa Allah u naxariistay dalkan waxa uu soo maray iyo dadkaani waxa ay wajihi doonaan. dhammaantoodna waxa ay ahaayeen raggii xilligaasi jarnaalka la shaqeynayay kuwa xasuus leh ogna waxa ay soo mareen bulshadaani. anigoo halkan aan ku soo koobi karin magacyadooda maadaama ay magacyadooda aad ay u badan yihiin waxaana ku abaarayaa warka nuxurkiisa. laakiinse maskaxda ku hay daawada in ragga hadda xilka ku matalaya beesha ay yihiin kuwa la yaaban xilalka loo dhiibay iloobana xilkan ay maanta ay hayaan raggii dhiigga u soo daashay buugaagtana ka qoray in ay doonayeen in ay beeshu ay sharaf ay ku noolaato. haddaba sheekadaydu waa ay dheer tahay waa sheeko taxana ah qaybtaani ayaan ku ekeenaynaa la soco saacadaha soo socda qaybta xiga. halkan waa Xogsare TV waxaana daawada aad daawan doontaa warbixinooyinkii ugu dambeeyay ee ku saabsan xaaladaha dalka Soomaaliya iyo gaar ahaan beesha. waa Xogsare oo dib ugu soo laabtay daawada aan arko subscribe-taada iyo like-taada inta dib dambe ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.